kulan wanaagsan saaxiibayaal lamaantii meel baa joogtaan soo dhawaada halkan waxaan idinku soo gudbinaa wararka barnaamijyada iyo waliba dhacdooyinka kuwii ugu dambeeyay gaar ah inta badan waxaan maalmahanba ku eegaynay wararkeena iyo barnaamijyada aan idinku soo gudbino dhacdooyinka dhanka doorashada dalka Kenya oo iyadu maalinkii shanaad sii galaysa xilli doorashadu ay tahay natiijadeeda ilaa iyo haatan mid markaasi laba gibleynaysa waxaa markaasi la shaacinayaa in xisbiyada ishaya ee Azimio iyo waliba UDA markan yihiin kuwa markaasi aad looga hadalhayo bartamaha dalka Kenya iyo waliba guud ahaan caalamka intiisa kale doorashada ayaa waxaa markaasi mid kamida musharaxiinta ku tartamaya xilkan sidaad ku daawateen bah uu sheegay in uu ka rajaynayo IEBC inay ku dhawaaqaan natiijada kama dambaysta taa oo uu sheegay in hogaanka uu u hayo Ruto laakiin warbaahinta caalamka iyo waliba kuwa Kenya ayaa iyaguna dhankooda waxa ay markaasi sheegayaan in natiijada ilaa iyo haatan la soo gabagabeeyay laakiin tiro ismaandhaafsan ay sheegayaan dhanka kale xildhibaanadii laga doortay deegaanada kala duwan ee markaasi ku kala matali doona baarlamaanka sanadka iyo waliba kan hoose ee aqalka hoose waxa markaasi hogaaminayo Azimio la Umoja MPyadii ugu badnaana helay halka UDA-na ay ku xoogan yihiin xildhibaanada dhanka sanadka William Ruto saaxiibadiisa ayaa markan waxa ay kaga mahad celiyeen militariga iyagoona ugu baaqay inay markaasi amniga sugaan isla markaana aysan cidna u xaglin taa oo ka dhigan in dalka Kenya ay markaasi jirto tension ama xaalad aad looga cabsi qabo wararka kale ee ku jira barnaamijyadeena waxa kamid ah dhanka doorashada la xiriira dadka Kenyaanka ayaa iyagu markaasi aad ugu fanaxsan natiijada ilaa iyo haatan la shaacin laakiin hordhaceedu ay tilmaamayo in William Ruto uu markaasi hogaaminayo halka kuwa kale ee taageeraya Raila Amolo Odinga uu markaasi helayo dadkooda inay markaasi aad uga naxsan yihiin natiijo saadaalinteedu ay tahay in mar kale odayga uu kursiga weyn karo IEBC waxa ay soo shaacbinaysay ama markaasi screenka ay ka isticmaalayso dhanka doorashada oo ay ku soo bandhigaysay natiijooyinka doorashada iyo codadka la dhiibtay ayay gabi ahaan joojisay taa oo ka dhigan in natiijada ugu dambaysta waqtiyada soo aadan lagu dhawaaqi doono taa oo ka dhigan in waqtiga uu ka sii idlaanayo oo muddada sharciga uu siinayo inay ku dhawaaqaan natiijadu ay tahay 7 cisho maalin qura ayaa kaga harsan dhanka kale Bomas of Kenya oo markaasi xarunta lagu tirinayo go'aanka gaarista ugu dambeysana laga shaacinayo doorashada madaxweynaha ayaa waxa amnigeedu uu yahay mid xilligan aad loo sugay xilli ciidamo dheeraad ah lagu soo kordhiyay kadib dhacdadii ka dhacday xarunta oo markaasi xisbiyada ajentiyadoodu ay markaasi isku weerareen dhinaca kale Bomas of Kenya amnigeeda sugitaankeeda ayaa waxa ka dheeri ah oo markaasi lagu wargeliyay garoonka heerka hoose ee markaasi lagu magacaabo Wilson Airport oo marka diyaaraduhu degayaan ay dul mari jireen Bomas lagu wargeliyay in gabi ahaanba aysan soo marinta oo ka dhigan in cabsi laga qabo diyaaradaha laftooda dhinaca kale waxa markaasi soconaya in William Ruto oo isagu markaasi hogaaminayo sida la sheegayo wararka hordhaca ayaa markan dhankiisa waxa uu u mahad celiyay ciidamada qalabka sida qaranka Kenya hadaba warbixinadaasi iyo wixii nagu soo kordha inta aan ku guda jirno barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal soo dhawaada hadii ay tahay markii kugu horeysay halkan soo gaadho waxaan ka codsanaynaa inaad ka mid noqoto saaxiibada ku xiran oo channelka aad share gareyso subscribe saarto muuqaalkana la wadaagto saaxiibada aan helin xogaha iyo waliba dhacdooyinka caalamka ee halkan aan idinku la wadaagno Ukash ayaa ila jooga oo markaasi aan isla falaqeyn doona dhankiisa waa qabiir dhanka arrimaha siyaasadda iyo waliba geeska Afrika oo markan doorashada si gaar ah isugu haya Ukash soo dhawow bal maxaan kala soconaa si guud amniga guud ee xaafadda Isli iyo guud ahaan Nairobi kalsame waad maasan tahay hadii aan ku bilowno si weyn ba amaanka dalka mataqaanaya loo sugay gaar ahaan caawa waxaa la arkay ciidamada aad u tiro badan oo booliska kuwaasi oo gaaf wareegaya guud ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Nairobi waliba anaga xaafada Isli ya mataqaanay ku arkeynay ciidan aad u fara badan kuwaasi oo amaanka dalka mataqaanay sugayo kadib markii ay soo shaac baxday in natiijada ama tirinta codadka ay soo idlaadeen isla markaas hadda la isku diyaarinayo qaabkii loogu dhawaaqi lahaa natiijada taasi marka waxay keentay in si guud amaanka dalka loo sugo
ammaanka marka waa sugan yahay mid haddaan ku daro ciidamada militariga dalka Kenya mataqaana ma codayaan laakiin waxa codaya waa ciidamada kale ammaankana mataqaana si weyn ba hadda ayaa loo sugayaa oo ciidamada booliska meel kasta mataqaana ammaanka waa ay sugayaan haddii aan ku bilowno warbaahinta gudaha iyo midda dibadda dhammaan waxa ay soo bandhigayaan natiijo hordhac ah taasi oo ku tusinayso in William Samoei Ruto inuu yahay hogaamiyaha sida aqlabiyada ah loo soo doortay waa tirada iyaga soo gudbinayaan haddaba tiradaas xagee ka heleen baa marka isweydiin mudan waxaan ognahay IEBC inay soo bandhigaysay markastaba brief ay siinaysay oo ah countiyaha iyo ismaamulada iyo sida loo kala helay inay mataqaana ku dhawaaqaysay tiradaas mataqaana ay qoranayeen nin kasta inta uu helay taasi marka waxay cadeen u noqotay in hadda ay haystaan sida Reuters iyo warbaahinta gudahaba ay sheegayaan in codadka ugu badan uu mataqaana u wato William Samoei Ruto taasina laga tacsiinayo in odayga mataqaana laga taagroonaaday mana aha markii laga kugu daro Rukaasho aan kugu sii daro waxaa jirtay in mid kamid ah musharaxiinta madaxweynaha dalka Kenya ilaa 4 ayaa u taagneyd George Wajakoya ilaa iyo haatan muu tanaasulin laakiin ninka lagu magacaabo David Maure ayaa waxa uu sheegay IEBC-na ka codsaday in markaasi ay ku dhawaaqi doonaan natiijadana uu ka rajeynayo in William Ruto uu la shaqeyn doono marka arrimahaasi marka waa isa soo tarayaan odagana de waa sheegtay oo markaasi in badan ayuu u soo istaagay xilkan sidoo uu hanan lahaa mar un sanadkan wax uu kaga dhowye malaha ayaa la leeyahay doorashadii tirinteeda waa ay soo ilaatay dadka qaar waxay ilaa iyo haatan aaminsan yihiin in William Ruto uu markaas hogaaminayo bal filashada odayga iyo familka uu ka dhashay iyo si guud marka lagu dhawaaqo natiijada sidee noqon kartaa taasi waa mid aad cabsida weyn abuurayso oo mataqaanay booliska meel kasta lagu daadiyay maadaama ifafaalaha soo baxay mataqaanay ku tusinaysa in uu soo baxayo William Samoei Ruto odayga reerkiisa markasta oo laga guuleystay waxay sameeyaan mudaharaadyo aad u waaweyn bay mataqaanay ay sameeyaan waxay gubaan gabaaridii waxay gubaan guryaha dhibaato badan ay geystaan saas daraadeed marka booliska yaa meel kasta mataqaanay lagu daadinaya iyadoo mataqaanay odayga loo tacsiinayo odaygana waa markii ugu dambeysay oo mataqaanay hadda uu tartami lahaa muxuu ahaa baaki muxuu ahaa kursiga ama kursiga u sarreeya dalka waliba waxaa la sheegay in isaga uu taagan yahay uuna diiday uu yiri ma aqbali doono wixii soo baxo taasi oo ah in asaga xilkiisa mataqaanay uu yar yahay waqti uu soo haray 5 sano bas inuu mataqaanay u soo harayba marka maadaama aad tiri waa uu diidan yahay hadii natiijada isaga laga guuleysto xalayna la ogaa in Bomas of Kenya agentiga ama wakiilkiisa ninka lagu magacaabo Saitibao ku dhawaaqay muxuu natiijada uu diiday in macnaha Bomas wax ka socdana ay tahay wax aan saxayn marka sababta sidaas ayaa leedahay sababtaasi waxaad garan kartaa in meelo badan oo kamid ah oo laga codeeyay in mataqaanay ku tusinayso in odayga mataqaanay u sareeyay laakiin xatooye fara badan mataqaanay lagu sameeyay William Samoei Ruto wuxuu sameystay agentiya gaar ah kuwaasi oo u tababaran habka mataqaanay loo maamulo muxuu ahaa codadka iyo habka mataqaanay xitaa loo sameeyo mataqaanay dhicitaanka wax badan bay mataqaanay sameeyeen meelaha qaar waxa arkaysa odayga oo boqol wax mataqaanay uu ka helayo in loo qoriyo 10 iyo wixii lamid ah marka ninka marka taktikada dhicitaanka sanadkii 2017 ay sameeyeen ayuu mar kale ku tijaabiyay ayaa la soo raraa aad weyn maadaama la laha markii hore ninkan saaxiibada ay yihiin mataqaanay waxa oo hadii maadaama madaxweynaha la socdo ninkan uu sameeyay uu ogaa waxa baa ka caawin doonaa bal laha laakiin waxa soo baxday in waxba ay tari weysay oo odayga mataqaanay meel cilla ah la soo istaajiyay waxaad ka dareemi kartaa guud ahaan baraha bulshada ee dadka ku xiriiraan hambalya mataqaanay saa u socoto oo nin kasta mataqaanay wuxuu sheegayaa in Ruto mataqaanay ku guuleystay dhanka kale mataqaanay oo himba idan socoto Raila ama mataqaanay cid la yiraahdo dadka qaar ayaa waxyaabaha iga qosliyo Rukaasho ka dhaxgalay waxa kamid ah in dadka qaar isticmaala baraha internetka gaar ahaan kuwa Kenya jooga inay sheegeen dad waliba magac ku leh inay yiraahdeen odayga hadduu sanadka mar kale ku guuleysan waa baco marka uu yahay oo fiiri waxaad garan kartaa 2017 13 intaas mataqaanay wuxuu dhahay waa la dhacay hadda waa la dhacay suurtagal ma ahan hadda waxa wadaba dawladda baa gadaal ka riixisay oo ninkii Uhuru ayaaba cadeystay inuu aad u taageeray isla markaana koofiyada hataa loo xiray mar kulan ay ku yeelanayeen ka ICC aad weyn waxa la yaab noqotay maanta oo markii ifafaalahan uu soo baxay in duqa laga reynaya ah markii siyaasiyiinta asaga uu dhawaa ninka la James Orengo iyo ninka la yiraahdo Yan Nyong markii laga reebay inay mataqaanay Bomas of Kenya inay galaan markii loo diiday odayga wali xelalka haya oo haddana xisbiga kamid ah yaa loo diiday inay gudaha inay galaan marka taa waxay ka dhigan tahay in odayga iyo saaxiibadii isla qulquli doonaan in laga wato oo ninkaas mataqaanay u wato yaa ta garan kartaa sidoo kale waxa iyadana mataqaanay cajiib noqotay
in Wilson Airport in loo diiday inay diyaaradaha kormaraan. Wilson Airport bal dadka hadii aga dhaadhicsinta badan dadka waxay maqlaan Jomo Kenyatta. Wilson Airport waa airport noocee ah? Wilson Airport waa airport ee ka baxaan diyaaradaha localka bas ka mataqana ka baxa marka diyaaradaha heer caalami ah waxay ka baxaan mataqana Jomo Kenyatta laakiin midkan isaga ah waa mid yar oo diyaaradaha garoomada loo yaqaan Soomaalidu dhahan macmalka kuwaas mataqana diyaaradaha localka bas ka baxa oo gudaha ah marka waxay leeyihiin ma dhici kar ma waxba ka imaan doono ma bamba lagu tuuri kulli cabsi ka qabaan marba hadii ay tahay xaruntii madaxweynaha hogaamin lahaa dalka Kenya 5 sano ee soo socota cidu allo calfana heli lahaa maadaama meesha hawsha dhariga lagu kirkirina ay tahay qasab dhariga marka dabku saarayde waa in laga ilaaliyaa waxyaabaha gadin karo ama dhibaato ku keeni kara wax kasta ka iman kara saas daraadeed marka waxay sameeyeen in diyaaradii ay diideen inay kormaraan waxa kaloo la keenay ciidamo dheeraad ah oo covid guud maanta yaa la keenay muxuu ahaa Bombs of Kenya JSU yaa la keenay kuwaas oo amniga si weyn u sugayo ciidamadaasi xalay iyo habeen hore mataqaanay ma joogin laakiin caawa mataqaanay ciidan hor leh oo aad u badan mataqaanay yaa la keenay taasi oo lagu tusinayso inay ka hortagayaan qalalaasa kasta oo dalka ka dhici kara ama la doonayo in mataqaanay dalka lagu afgambiyo ama dib mataqaanay lagu waxeeyo dhinaca kale bal ukaasha danka dhaxgalo iyadana wararkeena waxa ku jira oo markaasi daawadayaasha ay nala socon karaan ayna ogaan karaan in si guud horta tirada doorashada dalka Kenya gaar ahaan tan madaxtinimada TV-yada ayaa soo tabinay si gaarana waxa markaasi lagu sheegay TV-yada inay ku kala duwanaayeen natiijooyinka Womas dhankeeda waxaa yaala screen aad u weyn saaxiibada waxay ka arki karaan sawirada iyo muuqaalada aan la wadaagnay oo markaasi ku tusinaya jaantuska sida loo kala hore xilligan waxa gabi ahaanba la joojiyay in markaasi natiijada ama resultiga qaabka ay u kala horeeyaan ay cid hogaaminaysa la joojiyay taa iyadu maxay ka dhigan tahay wallahi midaasi laba nooc mataqaana way noqon kartaa mid waxay noqon kartaa tirintii codadka horta way soo idlaatay oo hadda wax mataqaana dambeeyo ma jirto saas daraadeed marka tirada iyaga ay haysteen cayineed inay dadku u sheegaan iyay doonayaan oo aan laga hor dhicin waa la dhihi karaa waxa kale oo idan la dhihi karaa in dawladda isku dayeyso in mataqaanay natiijada meeshaas ka soo baxday inay bedelaan oo mataqaanay loo wareejiyo dhanka odayga loo wareejiyo inay way dhici kartaa waayo waxay isla fiiriyeen haddii odayga uu ku guuleysto dhibka ka imaanay inuu yar yahay markii loo fiiriyo markuu ku guuleysto nin kale ka dhib yar markii loo fiiriyo saas daraadeed markii in xagga laga fiiriyey iyada lafteed mataqaanay way dhici kartaa oo ay dhihi karaanba natiijada aan naga shaacinaba sax ah laakiin natiijada ay haysteen warbaahinta iyo mataqaanay TV ay tabinayeen taana ka saxan maadaama anaga ay haysanay tirada saxda ah waana horena way u sheegeen ba waxay yiraahdeen nama qusay natiijooyinka TV-yada NTV Citizen iyo kulli dhamaan dhanka kale marka laga tago tusinta natiijadaas waxa kale iyadana la sheegaya inay soo idlaatay tirinta codadka oo markaasi ongoing ah ilaa iyo 24 saac ee la soo dhaafay hadii ay noqon lahayd kuwa ismaamulada iyo waliba kuwa kale ee foomamka si gaar ah foomamyada la isku haystay markaasi xataa qaladaadka 10,000 ee laga dhacay Raila Odinga la sheegay inay ahaayeen 34A iyo 34B oo markaasi koobiyo badan laga bixiyay xilli qaar kamida dadka markaas iyagu kamid ah xisbiga UDA lagu eedeynay inay markaas xitaa foomam u dusinayeen muuqaalana laga soo duubay gabi ahaan hadda waa ay soo xirantay marka taa iyada ah waxay ka dhigan tahay in doorashadii lagu dhawaaqayo sharcigase meeqa maalin ayuu u siinayaa in markaas uu soo magacaabo ma 7 cisha ma 6 cisha maxay tahay iyadoo aan ognahay in doorashadan ay soo bilaabatay taariikh 9 oo maanta taariikhduna ay tahay taariikh 14 horta sharciga Kenya xilliga markii doorashada mataqaana la qabto oo la soo gabagabeeyo waxay haystaan sharci ah 7 maalin in mataqaana ay haystaan oo ay ku kala hufaan oo wixii mataqaana khalad la saxo oo wixii mataqaana loo maleynay in madmadow ku jira mataqaana la hagaajiyo dhammaan loo kala hufo marka hadda waxa u soo hartay maalinta bari ah yaa u soo hartay iyo maalinka talaadada marka labada cisho wixii ka dambeeyay adu filashadu marka waxay tahay filashada ugu weyn waa in maalinta bari ah oo isniin ah inay ku dhawaaqayaan waliba gelinka hore iyo u badan tahay sida mataqaana uu hore u sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Wafula Chebukati uu yiri xilli maalin ah baan ku dhawaaqaynaa doorashada oo habeen mataqaana way diidayin taa ka dhiga markii de wixii dhici lahaa xalaal maalin baa la qoota aad weyn waa hagaag aad ayuu maasan yahay kaasi wuxuu ahaa Cukaash oo markaasi inala falqeynaya saaxiibada hadda nagu soo biiray warbixinadeena waxa kamid ah hadii aan si guud mar aan idinku sameeyno dhanka xisbiyada Azimio iyo waliba UDA ayaa markaasi waxa awood qaybsi ay ka sameeyeen kuraasta dhanka xildhibaan
xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare saaxiibada kale ee Ruto ayaana kaga mahad celinaya ciidamada dalka Kenya ee militariga inay markaasi ilaaliyaan amniga cidna ay la safan warbaahinta gudaha dalka Kenya iyo waliba dhanka dibadda ayaa iyaguna dhankooda waxa ay yihiin mid markaasi sheegaya in William Ruto uu markaasi hogaaminayo xilli odayga ninka weyn ee lagu magacaabo Raila Amolo Odinga oo isaguna iska diiday dadka Kenyaanka ayaana ku kala qaybsamay natiijada ilaa iyo haatan la shaacin laakiin filashadeedu ay tahay in William Samoei Ruto uu markaasi ku guuleysan karo xaggooda waxa markaasi iyaguna diiqad iyo waliba oohin markaasi baroor la taagan banaanada isla markaana xarunta Bomas of Kenya horteeda ku banaan baxeen taageerada xisbiga Azimio la Umoja guud ahaan waxa la joojiyay tusitaanka IEBC ee markaasi ay la wadaagaysay natiijada sida loo kala horeeyo amniga Bomas of Kenya ayaana la adkeeyay xilli markaasi la sheegayo in maalmaha soo aadan ayna si gaar ah loo filanayo in markaasi lagu dhawaaqi doono natiijada maalinka Isniinta soo dhaw Ukaash ee qodobkan ugu dambeeya hadii aan ku soo afmeerno maadaama markaasi doorashadu ay tahay mid markaasi soo gabagabowday madaxweynahana lagu dhawaaqi doono inta badanna la og yahay awoodda ay leeyihiin xildhibaanada oo markaasi hadii ay noqoto in governor xil laga qaado hadii ay noqoto in dawladda waxyaabo sharciga markaasi maadaama ay yihiin sharci dajiyaasha in iyagu la sheegayo in Azimio ay u badan yihiin xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose oo markaasi la awoodda ugu badan dawladda xilli ay ka mid yihiin saddexda aboodood ee dawlad ay leedahay bal Azimio saameyn cinka ay ku yeelan kartaa hadii ay soo galaan faa'iido ayaa ugu jirto oo waxa macquul ah in 5 sano soo socoto hadii guulo saamaxo cid u gaarsiiyana markaasi ay u suura gasho inay hogaanka sii hayn karaan laakiin hadii Ruto uu markaasi uu ku guuleysto soo caqabad kuma noqon karto xilli aan ognahay senatarka ama aan iraahday governorka magaalada Nairobi oo ah xarunta ugu weyn ee caasimadda dalka Kenya inuu markaasi ka socdo UDA ninka lagu magacaabo Sakaja horena u ahaa senatarka Nairobi bal arrimahaasi saameyn cinka ay ku yeelan karaan dawladda iman doonta maadaama laba dawladood ay yihiin laba xisbi mid umbaana guuleysan doonto bal hadii aad soo koobto hadii aan soo koobo horta xildhibaanada aqalka hoose waxay ka kooban yihiin dawladda Kenya 290 halka ay ka kooban yihiin senatarada 47 markii la isku fiiriyo isku awood ma taqaanaa maaha mar walba waxa ma taqaanaa awood badan aqalka hoose ma taqaanaa ka awood badan marka hadii xataa Ruto uu soo baxo caqabado fara badan buu ma taqaanaa kala kulmaya aqalka hoose waayo wax kasta iyo heshiis kasta oo la baas mareenayo waa in la geeyo aqalka hoose weey marka lama geeyo sanad saas daraaddeed marka caqabad aad u xooggan meesha ma taqaanaa kala kulmaya laakiin siyaasadda sida ma taqaanaa way isbedeshaa waxa dhici karta markii uu soo galay kadib in axsaabta intii la kala furfuro ma taqaanaa xisbiga ku biiraan ma taqaanaa laga yaaba si ma taqaanaa asaga u shaqeeyo waayo waxaan ognay xisbiga Jubilee awood u lahaa markii dambe la kala furfuray oo ma taqaanaa kala tagay marka Azimio la Umoja hadii markaa ay guul dareysatay odayga meesha ka baxo ma dhici karta inay meesha isku sii haystaan waxa laga yaabaa in hogaan cusub ay doortaan iyagana ay kala siibtaan oo ma taqaanaa xisbiga hadda ma taqaanaa ninkan Ruto inay ku biiraan dad badan hadda ma taqaanaa banaanka joogo ama ma taqaanaa kamid ah Azimio la Umoja marka awood ugu badan hadda ma taqaanaa laakiin ma la soran karaa the UDA maadaama xisbi cusub uu yahay isla markaana ninkan uu ku andacoodo inuu isticmaalo wheelbarrow-ga ama gaari gacanka inta badan uu sheegay dadka hoose in la soo qaaday laakiin way ku jabeen dad magacyo waaweyn ku lahaa oo markaas ay kamid tahay islaanta lagu magacaabo Millicent Omanga oo markaas iyadu ahayd women rep-ka Nairobi laga guuleystay nin kale isagana u taagnaa MB-ga Starehe si gaar ah ololihiisa uga muuqday Simon Mbugua waa laga guuleystay dad badan ayaa markaas ku hungoobay in markaas ana way guuru ayaa kamid ah marka sidee markaas suuragal ku noqon kartaa in markaas waa soo noqotay marka hore laakiin waxa la sheegay in laga guuleystay hilmaam hadal kuma jiro waa ay soo laabatay bal UDA ma sii socon doona maadaama ay sheegtay in xisbigan hadii Raila laga guuleysto la furfuri karo UDA ay ku soo biiri karaan magaca UDA horta waa la bedeli doona oo magaca kala mataan la soo bixi doona waayo waxa dhici karta markii ay jiraan 6 bil ama sanad ay jiraan kadib isbedel kala ma taqaanaa xisbiga ma taqaanaa ku iman doono taasi oo keenayso in Ruto si uu u shaqeeyo isaga iyo inta yartay u soo baxday xildhibaanada awoodna u helaan waa inay isbahaysi ka raadsadaan axsaabta kale ee dalka ka jirta dana
oo hadda matana azimiyo lagu midoobay waa in la kala furfura oo iyaga qayb kamid ah matana ay u galaan hadda matana UDA oo magaca la bedelo magaca kale matana la baxa wayna sameyn doonaan waayo waxaan ogeyn iyadoo matana markii way oo qaybsi la sameeyay 2007 ODM matana ay ahayd waa kii la kala furfuray oo matana ODM Kenya ODM waxaan kala baxay marka saas daraadeed marka UDA kaliya matana ma joogayso raggii rugcadaag ah u soo jabayna saxada ka baxeen rag badan matana ay soo halgamay laakiin saas ay tahay haddana hadday dowladda soo gasho iyaga matana shaqooyinkooda u diyaar oo way helayaan laakiin wada shaqayntii dowladda iyo qaabka u shaqayn lahayd waxay u baahan tahay marka in ay isbahaysi ka samaysata muxuu ahaa xisbigan azimiyo qayb kamid ah inay helaan weysay aqlabiyad baarlamaanka aqalka hoose ay matana uga helaan ay waxay heshiisay baas mareenayaan iyo wixii dhaqaale ahna halka la marinayo in matana ay helaan aqlabiyada haddii ay heli waayaan dibata meesha matana ay ku noqonayso ruutona si ku shaqeeyo adkaanaysa waa mahadsantahay Cukash kaasina waxa uu ahaa Cukash oo markaasi nala falanqeynayay wararkii ugu dambeeyay doorashada dalka Kenya si gaar ah shaashadaha iyo waliba warbaahinta waxa ay isha ku hayaan natiijada kama dambaysta ee maalinka bari ama hadduu guulo saamax maalinka xiga lagu dhawaaqi doono xilli si gaar ah loo eegayo dhanka qaabka dadka ay uga falcelin doonaan maadaama arrintu ay ka dhaxayso oday ku soo gaamuray sidii uu heli lahaa xilka madaxweynaha iyo waliba nin markaasi dhalinyaraha si gaaran ah carcar u leh marka ay timaado ka hadalka dhanka siyaasadda oo madaxweynaha dalka Kenya ninka xilka ka sii degaya ee Uhuru Kenyatta hadallada hawada uu marinayay lagu xasuusto si gaar ah waxaan alle kaga baraynaa in shacabka Kenya iyo waliba guud ahaan dalkan uu u noqdo mid nabadna ku soo dhamaata doorashadan tan iyo kulanti dambe saaxiibayaal nabadgelyo